دستورك قدرك الصدرات بيت الصدر سجال لما صدر يكون أنتوا وإسكافر إيمانيا بالمثل دقمة مقالمة على الحالة مثل واشنطن دي سي لوسمي أو كان لوسمي طلعوا يوم يلا كمان تسمع مرة واحدة ليه ما مقولات بكتر سنة حتى الأخزان هذا بكرة هو رئيسا تم فدرال كمان كفدرال كأنا وحنا واحد 2004 الإصلاحات حل بيتاعي حتى 2011 كمان تؤلف كحل معها فدراليزمكم سببته ويا جماعة يا واحد نبطي قبيل ما قبيل كعربي يسكوكم يسند وإحنا كان مركب وين نقدر قبيل ماشي أسرة يسني ماشي قوة ما في أسود عنا مركب هدي حل كيس وساعة ونقطي صومالي وأسكو أفصحي وكذي ولا وأسكو أف وأسكو دين وأسكو لغة وأسكو دين فهر هالك إنه مصر غيره مركب وحلاقي تا فدرال أساسا لا تكلا يقدر هاش ما كي يقدر مسار بين كل مركب اللي صار مع يسيبه وعوي قضبك فضلا بليز أنت سيريوس الله تعطى مدحوينها شروطها الله يجري فدرال كذا وحاولتها الله وكليا بعد أوفي صدق هل سنتنس كليا بيالا قيمتي سإنجليش كذا يقيمتي سالصومالي أنا وإسكاه إيمانيا أخيرا هل قضب كليا بيالا وحنجعلها إن لو دروا ريكورك إن مدحوينها شروط الله يلقوا ليرادو وإنه يسوي إسلام يهي حاسكيسو الإسلام أي تهي ومهم قدر كاس حاسكيسو إنه مدحوينها إنه إسلام يوصيله ما وجهنا الله إنه مدري لكن ما أخذ يوصيله هو يدري أفريقيا أمريكا تاسنا وحاورنا من ذكر حتى مدحوينها قف النقايا قف السدينها من كل شيء آخرية مدحوينها وحكاه الإيمانية إسلامتي وكاه الإيمانية وإنه درس الصومالي ليه درس الصومالي قرآن أمي صمتا حتى حمل جوتا شن سنة مركي جوتان صومالي ستيسب وقرانا كرا ويلكودنا مدحوين ونقوكرا جنسيتي مركو هنجعلها قرآن وحقوريسا مدحوينها جنسيتنا وإن دبلو ونقضا مدحوينها وإن شروطيسا ولو قدر حاس كيسو إنو الصوماليا وصبح عدانا قبل السلام عليكم هو وحير هذا لبا أرين أيام بيش كشيء بيت أو lacagta ku baxday horta lacagta ku baxday Soomaali maalmo kale keenan mar 10 milyan ay dhahan mar 100 milyan ay dhahan mar 60 milyan ay dhahan horta waxa roon markii adiga aad information ka sax haysatid aan ku dhahay lacag yar lagu qoray lacag yar ku baxday ku dhahay aan ku ogi intay ku baxday laakiin anaga fadhina waa ku dhameena anaga meeshi fadhina 60 milyan la soo tuuray dadka meeshi fadhiya waxay dhahay 10 milyan iyo wax la jira ku baxday marka waa meeshi sakaadeena tan adiga sheegtay magaalada tan magaalada sheegtay magaalada waa contentious issue waa isku haystaa arintee in fact dastuurka markuu ku siinayo waa options waa meesha waxa ku qoran wax iska imaanaya ma saddex option ayaa la siiyay dastuurka wuxuu dhahayaa ko in xamar ay noqoto sida Washington DC okay federal district ay noqoto laba option labaad wuxuu leeyahay xamar dawlad goboleed ayay ku biiri kartaa waxay noqon kartaa magaalo ka mid ah dawlad goboleed qodobka saddexaad wuxuu leeyahay xamar naftiisa Muqdisho iyada nafteeda inay federal state noqoto marka those are options yani isku qaldin wax iska imaanaya ma doctorada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي ومالله. كانسكا يدات إنتان كبارين لنا الفرق ودي كان وكان الله لكن بصوت وسط وقتي أو شباب فكر أو أنا كنا مكان إن ماشى وكم غيا ودات عليه مغين ورر هايان وكم سعي مغين معقولة. dadka qabanqaabayaasha iyo arrinkan waa maasan yihiin insha Allah messengers oo loo soo dhibaarika ama laga yeelo ama maaragtay Soomaaliya isku raacay ama hadiido maaragtay waa oo Soomaaliya u taalo way inta kadib aragti ahaan runtii dastuur haddii la yiraahdo waxaan aaminsanahay insha Allah dastuurka inuu yahay kii alle وحويان أو إلهي يعني
ninka caadilsan male oo kala saaraya human beingka asagaa sameeyey maslaxadoodana asagaa og laakiin waxaa fasiray habnololeedka iyo loo noolaanayo waxa weeye nabiga iyo xadiistiisa fasiray haddii la rabo in la raaco waxa weeye waadaxaad iyo meel laga raaco iyo hab loo noolaaday kulli waa caddahay ninkii rabo xaq waxaa kala jira oo taas ka soo hartay wax ka baxsan oo macaamilka dadka bini aadamka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku cabidsan sidai ayaga dhexdooda macaamilkooda inay shuruudo samaystaan ay wax ku kala dambeeyaan maaragtay sidii odayaasha iga horreeyay qaarkood ay sheegeen halkii adiga aad baarlamaanka afar qof ha laga dhigo 100 ha laga dhigo nidaamka adiga aad samaysan lahayd waxa weeye iyo habkii maaragtay adduunyadaada aad u raacan lahayd waxa weeyaan groupkii meel ku nool inay isku raacaan oo meel wax isku ogaadaan oo maaragtay laakiin ka baxsan wixii religious issue ah inay samaystaan waa laga maarmaan marka waa dastuur ahaan daaxidiisii taasaan siinaya diinta ma ku sheegaysa baarlamaanka 40 ha laga dhigo 24 ha laga dhigo 34 ha laga dhigo waa hawl ummadda ay u taalo nolol yani qaab nololeedkeeda iyo habkeeda ay u samaysato taas way midda la rabo war hab nololeedkan waxa weeyaan nolosheena say loogu sahlanaato waxuun aan ku heshiino yani oo aan wax u dhimayn caqiidada iyo waxaan aaminsanahay wax u dhimayn inaynu ku heshiino waxa weeyaan taas weeye maaragtay dastuurka sidaan aaminsanahay insha allah masalan gaala iyo muslim dastuurka ay samaysanayaan wuxuu ku beesgaraysan yahay marba caqiidada ay haystaan waxyaabaha hoosaadka iyaga ay samaysanayaan waa wax ay maaragtay caqiidadooda ay ku beesgaraysan tahay Christian waddanka hadduu yahay dastuurka ay samaysanayaan related on Christian on basic oo waxa weeyaan haddii aaminsiin Buddhism haddii aaminsiin waa ku beesgaraysan yahay marka waxa weeyaan waxyaabaha hoosaadka annaga aan samaysanayno waxa weeyaan in uu noqdo mid maaragtay diinta uusan maaragtay ku xadgudbayn inuusan taas wey waxaan kaloo kusoo maaragtay gelayaa arrinta federalismka federalism waa hab yani nololeed bulsho haddii la isku raaco dadka Soomaaliyeed ay isku raacaan ee u gartaan noloshii hore tii ka duwaneed oo maaragtay central government-ga oo amarka meel keliya ka soo baxaya ilaa iyo tuulo gaaraya oo maaragtay powerka sidaas u socday haddii ay ku heshiiyaan oo maaragtay ay ku heshiiyaan waxa weeyaan waa weyn haddii ay ku heshiiyaan regional autonomy wax la yidhaahdo waxa weeyaan oo aan maaragtay federalismkana ahayn laakiin regional autonomy يعني central government oo powerful na ahayn laakiin dadka in laga sheekaraysiiyo oo maaragtay laga qaybgeliyo awoodda iyo ismaamulka iyo go-aan gaarista inay ka qayb galaan waxa weeyaan arrin oo maaragtay meesha ku jirta weydan marka maxay tahay baahida keentay in federalismka please federalismka baahida keentay in dadka qaarkood ay maaragtay dreamkooda ay ku soo daraan oo waxa weeyaan maaragtay u haqaltaagan oo federalism baan loo fiicnaan lahay waxaa keenay waxa weeyaan disequiliansa oo maaragtay sharing power sharing oo dadka qaarkiisii waxa weeyaan in dulmi ay dareemeen maaragtay waxa xuquuq ay u lahaayeen waddankaasi tiisanka ay ka yihiin ay ku waayeen marka taas darteed war aniga ilaahay baa abuuray meesha aniga aan deganahayna waa isu maamuli karaa anaga oo midnimada yani centralkana aan yani diidaneen laakiin waxa weeyaan ismaamul oo maaragtay baan u baahan marka federalismka sidaasay ku imaan kartaa waana power sharing mana la isku dulmaayo oo waxa weeyaan haddii ilaahay idinkeeda leeyahay basic on maaragtay doorasho bay ku imaan kartaa
marka aniga hadiiba oo ummadan hadda la kala dheeglayahay oo meel walba iyadoo maanta sidaas ay tahay haddii xuquuq ay ku kala qaybsan karto laguna heshiiyo wax aad u xun maaha waa ka baxa salaam السلام عليكم وحنا وحنا أبوك ناصر هذا يوسف شباب شهرين ناصر عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلس وحيد أبوك السنين أن كل يوم تقال ركبة المجلس وأسنقان ولكن جزاكم الله خير. شاء إخواننا يعني المحافظة أن غير مقبولة حياة بيسيكا. oo ka mid ah taqaanaani dadka qaar loo sameeyay luqoreeta madad macnaa homogeneous mashruucada tadriifiyeed madad macnaa isku luqad isku mataqaana diin biya mashruucada kala duwan marka taa horta macnaa waa la fiiriyaa marka qaanada diinayso waana fiirada wadayda dalayihiin taa marka waa muhiim in la ogaado marka taan fiirna Soomaaliya qofkii boqol muslimiinahay kasoo shaafici baa wadanahay mataqaanaani Soomaaliya waa hadalnaa mataqaanaani waddankeena waa waddan yar oo aan u weyneyn marka taa marka haddii aad fiiriso intaas oo qodobaa fiiriso waxaa kusoo baxaya bulshada agaadisa wuxuu noqon doonaa inaad u baahnayn federalism yani bulshada mataa imaanaya mataa aqoonyada kadib waxaad samaysaa inaan u baahna maanta federalism marka haddii iyada marka dad sheeganaya inay mataqaana xuquuqda dowlad tahay oo wax laga sameeyey oo macnaha dulmi lagu sameeyey yani sidiya wax dhamaysay maasha ilahi qadasi gabadha mataqaana walaashay maasha allah يعني معناها في الله ربنا سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله يعني واحد كسر سبحانه وتعالى يعني بعلي مثلا القران هي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع مع هذا الله ممكن اقرب مع هذا يعني مثلا مديريش يعني مثلا ذكرت حاجه مثلا الدستور كل شيء الى البلدان يعني الدستور بتاع ولا معناها وكلمه معناها عربي هواي او يعني كل شيء لنا قرار تابع كده تفضل حاجه من زي الوبيل كتاب الله كتاب هو معه الدكتور كده واسع الله نهي او نوع مثلا دل بس على قول نوع لكن مثلا مسلمين تا يكون مسلمين ايما يكون شيء وعهد يقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفعل ودستور marka waxa marka dasturi waxa rabaa inuu waafaqo waxa aqeedada oo aan aaminsan waafaqo taas muhiim marka iqbaal marka marka ku dhadawro laakiin waxaan leeyahay taqanaani waxaan federalismka dadka loo keenay waa naqanaan waa dadkii mataqaana warrorska oo waddanka mataqaana qaybsanayay mataqaana qofka mataqaana rabay inuu asaga dadkiisa ka gaaro marka taa ina ogaado muhiim ah aan mataqaana warror shaqeynayno waxaan shaqeynaa mataqaana qofka muslimka ilaha ka qaabsi yani qadii mataqaana waxa sharci ah mataqaana diinta islaamka mataqaana shariicada ay tahay taasana oo fahmtaan ah oo ku qaybsano laakiin federalism mataqaana qorana aan u baahnin marka dadka waxay mahadsantahay abuukar waa kuu qoraaya runtii waxyaabo fikrado fiican baa halkaa laga sheegay inta ka mid ah tan diinta islaamka laakiin ani midaan dhihi lahayn haddaan runtii muslimnimada si fiican u qaada leh ma bisdili leh marka qaarkood I'm a scientist waxaa lagu yaqaanaa wax practical wax theory mu soconaayo so waxaa waaye markii Soomaaliya arinteed laga hadlayo run waayo kulligeen muslim waaye markii masaajidkan waa isjecelnahay markaan kasoo baxno waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo 1400 sano ka jirtay 1400 sano ka jirtay waxba waa u tari weysanaayo dhaayaan soo arkay sacuudiga marka Soomaaliya waxba u tari ma markii sababta waxaa waaye ninka haddii qalbigiisa ilaahay madoobeeyey mu toosaay marka ummadda Soomaaliyeed inay diinta ay bartaan oo ay arkaan oo ay isku maamulaan wax fiican waay laakiin runtii waa ka fognahay xasan dheer السلام عليكم أنا وعيد قرآن أخري معي وهذا الرجل ما قلت حسيش أركان فدراليسم نحن نور أرمض كيراهو يكونستيوشن كمان حاجة كنستيوشن وحوية كونستيوشن كمان سيدي كل جنت المعنى ده الصومالي تمام إيه مو هو الصومالي مقتيمة waxaan hadaysan dad Soomaaliyeed aysan qorinin kulli luqadaadi iyo dhaqankaaga midna ma laha tusaale ahaan markaan fiiriyo waxaan fiiriyay hal meel marka waxaa la leeyahay luqada laga hadlayo